for a story. It's time for a story. Come and join us, my friend. Sheeko wanaagsan, sheeko waan kala imo oo dhegayso. It's time to sit down, it's time to listen. Boys and girls, it's story time. Haddaad rabtid inaad maqashid kala imo oo dhegayso. soo dhawaada caruur maanta waxaan idin akhrinayaa buug aan aad u jeclahay oo la dhaho Abiyooyo magacaygu waxa waaye Zamzam soo dhawaado sheeko beri hore waxaa jiri jiray wiil yar oo cayaaro kaban wuxuu aadi jiray magaalooyinka iyo ku wareegi jiray wuxuu dhihi jiray cling clong dadka waaweyn waxay dhihi jireen geedka naga qaad naga bax meesha nagala bax taas kaliya ma aha aabihiisa also wuxuu geli jiray baxar wiilka aabihiisa wuxuu ahaan jiray indha sarcaadle wuxuu haysan jiray ul dheer ka bacdi wuxuu sameyn jiray zub wuxuuna indha sarcaad ku ridi jiray dadka oo dhan waxana way dhumi jireen laakiin dadka badanaa wuxuu ku cayaari jiray cayaaro badan oo qiyaamo ah marka qaarkood wuxuu u imaanayaa qof daalan oo biyo qaboob cabaayo ka bacdina wixii way dhumayaan haddana wuxuu imaanayaa qof aad iyo aad shaqo u haayo oo zid mishaar wax ku jaraayo ka bacdi mishaartii wuu weynaya wuxuu u imaanayaa qof asoo daalan oo maanta dhan shaqaynaya rab inuu u fadhiisto kursi dhanba ma lahan dadkii aabii waxay ku dhaheen naga bax magaalada dhan uga bax adiga iyo sixirkaaga iyo dhasarcaadkaaga adiga iyo wiilkaagaba israaca naga taga aabihii iyo wiilkiisii go'doon ayaa lagu riday go'doon ma taqaana macnihiisa go'doon waxaa la dhahaa qofka markii oo magaalada laga buriyo oo kaligiis meel dego magaalada waxaa laga sheegi jiray sheekada dadka badana waxay ka hadli jireen bahal weyn oo aad u weyn oo meelo waa hore deganaa jiray waxay dhihi jireen bahalkan waxaa la dhahaa Abiyooyo waxay dhihi jireen geedkaneeto wuxuu dheer yahay sidii bahal camal wuxuu dheer yahay sidii geedkii camal wuxuuna cuni karaa dadka oo dhan laakiin qof aamini jiray ma jiro laakiin si kasta ay tahay sheekada way sheegi jireen maalin maalmaha ka mid ah qoraxda ayaa soo baxday ayadoo gaduud ah dadkii dhan markay soo istaageen waxay arkeen hoos weyn oo soo baxayo waxayna dareemayeen dhulka dhan asoo gariiraayo haweeneyda dhan meesha joog way qayliyeen nimankii way suuxeen alla carara naftiina la carara Abiyooyo ayaa soo socdo ayay ku qayliyeen wuxuu u imaanayaa lax dhan oo meesha taagan laxdii dhan ayadoo sideeda ah qulub waa laqay wuxuu u imaanayaa sac dhan oo kaligiis meel taagan qulub waa cunay nimanku way qayliyaan alla wixii inkugu muhiimsan la qaata carara meesha dhan ka carara Abiyooyo ayaa soo socdo ka bacdi waxaa soo kacay aabihii iyo wiilkiisii markay soo kaceen wiilka wuxuu dhahay aabe maxaa waay waxaas daaqada uga jeedo aabe wuxuu yiri oo kaas waa Abiyooyo alla laakiin hadduu dhulka kaliya ii gaari lahaa oo igu dhici lahaa dhulka asaga dhan waa dhumin lahaa wiilka wuxuu yiri aabe isoo raac aabihiis ayuu gacanta qabtay aabihii iyo ushiisii ayaa israacay wiilkin wuxuu soo qaatay kabankiisii waxay ku ordeen banaanka dadkii way ka daba qayliyeen allah ha aadin Abiyooyo wuu ku cunayaa Abiyooyo adoo nool wuu ku cunayaa isilaaliya Abiyooyo ay u tageen Abiyooyo cidiyo wuxuu lahaa dheer because cidihiisa weligiis ma jarin wuxuu lahaa ilko asaga dhan isku dhex yaacsan yihiin because ilkihiisa weligiis ma cadaysan wuxuu lahaa lugu oo uraayo because lugihiisa weligiis ma dhaqin madaxiisa dhan isku dhex daadsan yahay because madaxiisa weligiis ma uusan shanlaynin adin ka bacdi cidiyo kor u soo qaaday inuu cuno ayaga ka bacdi wiilku wuxuu sameeyay kabankiisa ayuu la soo baxay wuxuu dhahay Abiyooyo laakiin weligiis Abiyooyo hees muusa maqlin asiga uu leeyahay wuxuu sameeyay wuu qoslay ilkaha ayuu soo muujiyay wuxuu ka bacdi bilaabay inuu cayaaro oo heestii la cayaaro Abiyooyo wiilkii ka bacdi kabankii xoog iyo dhaqso u sameeyay heestii
أبيويو 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 محسمي وعيارة أسجين حوق أي وعيارة أبيويو بحالكي وينا نفتي أياكو دكتي سو عياراي كبعدي وحسمي dhulka ayuu ku dhacay markuu neeftii uu sameeyay waayo aabihii isla markii wuxuu la soo baxay geedkii oo indha sarcaadka ahaa markuu la soo baxay zuf muxuu sameeyay taqaanaa bahalkii dhan eber waa dhumiyay dadkii banaanka ka soo fiiriyeen daaqadaha allah abiyooyo waa dhumay wuu baxay abiyooyo dadkii dhan waa soo carreen banaanka u soo carreen wiilkii aabihiisa koray ku qaadeen kor inta u qaadeen waxay sameeyeen dhabarkooday saarteen allah soo noqda adii ukaleeleydii indha sarcaadkiina soo qaata soo noqda waxaan dhan dhudhuminayseen ma kala jeclin adin kale marnoo noo soo noqda adan dadkii dhan banaanka marka u soo baxeen oo dhabarka ay aabihii soo saarteen waxay bilaabeen inay heesta qaadaan abiyooyo 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 and then storyga saasa uu ku dhammaaday aabihii iyo wiilkii magaalada lagu soo celiyey mahadsanid maadaama aa waqti ila qaadatay inaan buug ku akhriyo